Ramadaan waa maalin taariikhi ah. Waxaa dhacay Ghazwatu Badr al-Kubra. Qaabkay u dhacday, sababaha keenay aan isla aragno. Nabiga iyo asxaabta markay Maka ka soo hijroodeen, Quraysh muslimiinta way cadaabeen, cunqabateyn ayay saareen, maalkoodii guryahoodana way xalaashadeen, wayna dhaceen. Hababka dagaalka maanta caalamiga la isticmaalo waxaa ka mid ah in cadawga cunqabateyn la saaro, xag dhaqaale ahaan la taakeeyo si awoodiisa u daciifto. Nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu maqlay in safarkii Quraysh ay u soo safri jireen Shaam inuu soo socdo, asxaabta ayuu iskugu dhawaaqay qofkii rabo inuu soo baxo. 312 qof ayay ku soo baxeen, waxayna wateen 2 faras iyo 70 geel ah. Waxayna soo aadeen tog Badr oo ah tog ku yaala inta u dhaxaysa Maka iyo Madiina. Abu Sufyaan oo qaafilada waday waxaa gaaray khabarka. Nin caqli badan uu ahaa, wadadii uu mari jiray Maka uu ka leexday, wado kale ayuuna Maka u maray. Wuxuuna sii diray Dumdum al-Ghafaari si Quraysh uu gaarsiiyo khabarka. Dumdum wuxuu u tagay Quraysh, wuuna soo kiciyay ayagoo markii hore Nabiga dagaalkiisa u xiisa qabay. Waxay ku soo baxeen 1300 qof. 100 ka mid ah fardooley ay ahaayeen, inta kalena nin walba hashiisa ayuu saarnaa. Waxaana hogaaminayay Abu Jahl. Markay meel dhexe soo gaareen, waxaa soo gaaray fariin kale in safarkii Abu Sufyaan uu soo badbaaday, wuxuuna u soo faray inay iska soo laabtaan. Quraysh way tashatay, dadkii ugu deganaa waxay ku taliyeen inay iska laabtaan, laakiin Abu Jahl wuu diiday. Waxaa ka soo haray Bani Zuhra oo ahaayeen 300 oo qof. 1000 kalena way sii socdeen. Nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu qabarka soo gaaray, wuxuu la tashtay saxaabada, waxayna isku raaceen inay dagaalamaan. Markay imaadeen toga Badr, waxay saldhigteen ceelka ugu horeeya agtiisa. Xabaab bin Mundir oo ka mid ahaa asxaabta wuxuu kula taliyay Nabiga sallallahu alayhi wasallam inay dagaan ceelka ugu dambeeya agtiisa si ceelasha oo dhan gadaashooda u jirto, Quraysh ay weyso waxay ka cabto. Taladii Xabaab ayuu qaatay Nabiga, waxayna ahayd talo aad u fiican. Karaamaadkii uu Ilaahay soo dejiyay waxaa ka mid ahaa inuu Ilaahay muslimiinta ku soo dejiyay hurdo iyo roob si uu u xasiliyo qulubtooda. Habeenkii markuu dhamaaday, subaxiina uu soo dilaacay, waxay ahayd 17 Ramadaan. Waxaa bilowday maalinkaas dagaal taariikhda galay. Quraysh waxay iska soo saareen 3 nin, waxaana u soo baxay 3 ansaarta ka mid ah. Waxay dhaheen, waxaan rabnaa qoomkeena. Waxay ula jeedaan muhaajiriinta. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo saaray Xamza bin Abdul Muttalib iyo Cali bin Abi Talib iyo Ubayda bin al-Harith. Xamza wuxuu ku aaday Shayba wuuna dilay. Sidoo kale Cali wuxuu dilay Waliid. Ubayda bin al-Harith wuxuu ku aaday Cutba wuu dilay, laakiin waxaa soo gaaray dhaawac oo markii dambe u dhintay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu Ubayda u dhintay, wuxuu dhahay, waxaan marqaati ka ahay inaad tahay shahiid. Halkaas markay xaaladdu marayso, Quraysh way soo ordeen. Nabiga sallallahu alayhi wasallam qorshihiisu wuxuu ahaa markay soo dhawaadaan inay falaaraha ku ridaan si fardooleydooda ay u daataan. Dhab ahaantiina way dhacday. Dagaalkan wuxuu socday ilaa duhuradii. Waxyaabihii la yaabka lahaa ay muslimiintu arkeen waxaa ka mid ah inay arkeen mushrikiinta qaar oo qoortooda haadaysa, wax dilana aysan u jeedin. Markii Nabiga ay weydiiyeen, wuxuu u sheegay in malaa'igta Alle dagaalka ay kula jirtay, Ilaahayna uu soo gargaaray muslimiinta. Sidaasna waxaa ku guuleystay muslimiinta. Quraysh waxaa laga dilay 70 kalena waa laga qafaashay. Muslimiintana waxaa ka shahiiday 14 saxaabi radiyallahu anhum wa ardaahum. Ghazwada Badr dhacdooyinkeeda halkan ma ku soo koobi karo, laakiin waxaan isku dayay inaan soo khulaaseeyo oo soo koobo. Wabillahi tawfiiq.